qabatay 3 bilood inay wadanka uga baxaan haddii ay sidaasi dadkaasi waxa kamid ah Soomaali fara badan oo iyaguna dalkaasi Sacuudiga iska joogo iska xogsada arrintaani walwalka ay abuurtay iyo xaaladda Soomaalidaas ayaanu ka wareysanay Khatre Axmed oo kamid ah dadka ka xogsada wadankaasi Sacuudi Arabiya waxa wareysatay wariyaha BBC-da Firdawsa Maxamed Cilmi warkan waxaa soo saaray xabiibti wasaaradda daakhiliyadda ee Sacuudiga waxaana waaye amar uu soo rogay Malik Salmaan 3 bilood ayaa la siinayaa ajaanibka jooga wadanka 3daas bilood cidii ay iqaamada haysato ama sharci haysato oo wadanka sharci ku leh waa in ay sharcigooda ay hagaajistaan cidii uu ka dhacsan yahay cidii ay wax uga jiraan ahmar iyo waxyaabo sidaas oo kale waa inay hagaajistaan cidii aan sharci ku lahayn wadankana waa inay iskaga baxaan haddii ay ku bixi waayaan 3daas bilood in guryaha loogu soo galayo shaqooyinka kale loogu soo galayo baabuurta lagala degayo meel walba ay joogaan lagu qabsan doono si wadanka looga bixiyo Soomaalida wadanka ku nool inta badan ajaanib waa wadanka wax ku nool Soomaalida qaasatan qof waliba asagoo sharci lehna wadanka iskaga shaqeysta asagoo sharci lehna wadanka iska jooga qaarkood family iyo ku yihiin caruur bay ku leeyihiin oo ma fududa in 3 bilood ay sheegtay 3 sano xataa ay uga ma bixi karaan dibkiisa badan wallahi waa arin aad u culus yani waa arin ajaanibka dhan saameysay hadalkan safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya ma jirta wax xiriir ah oo ay Soomaalidu la sameeyeen ama safaaraddu ay la soo sameysay bulshada halkaas ku dhaqan wax xiriir ah ama hadal ah oo safaaradda dhankeeda nooga yimid ma jiraan haddii xitaa safaaradda annaga aan tagno oo aan la hadalno oo aan uga baahano wax caawinaad ah kama helno oo safaaradda ma ahan mid saas u sii awood badan oo ma ahan mid wixii loo baahan yahay maanta shacabka Soomaaliyeed oo wadanka ku nool ay uga baahan yihiin ay ka heli karaan ma ahan waa mid yani aad u liidata haddii aan tagno maanta safaaradda oo niraado baasaboor aan u baahanahay haddii aad tiraadid warqad caafimaad aan u baahanahay haddii aad tiraadid warqad oo maalan waxyaabo kale aan u baahanahay aan wadanka uga samaysan karo ma ahan mid wax suurtagelaya oo aad maanta ka helaysid Khadra marka adiga tusaale ahaan wadanka Sacuudi Arabiya sidee ayaad ku gashay maxaana haatan ku joogtaa wadanka waxa imaaday 2007 bishii 9aad ay imaaday markaan imaanayay kumaan soo gelin sharci wadanka waxaan soo maray Muqdisho ka soo baxay Hargeysa soo maray Djibouti aan soo maray Yemen aan soo maray kadib sidaas aan Sacuudiga ku soo galay ilaa iyo haddana waan ku noolahay wax sharci aan kuma aanan yeelanin ilaa iyo haddana alxamdulillah wax dhibaatana kulamaana kulmin dad badan oo sideedoo kale aan way joogaan oo aan sharci ku lahayn wadanka haatan 3 bilood ayaa ajaanibta ka shaqeysanaysay dalka Sacuudi Arabiya loo qabtay marka adiga ka qadar ahaan maxaa ku qorsheysan halkee ayaadna wajahaysaa ani markaan hadalka maqlay saameyn weyn ugu yeeshay waayo waxaan ahaa qof xoogsata oo xoogeeda ku shaqeysata halkan sharcina kumaanan haysan laakiin xoogeygan ku shaqeysan jiray dhan walba ay ahaataba bas dhibaatada jirta waxay tahay hadeertaan ma waajihi karo wax walbaba oo ma dhihi karo isla caawa wadanka waa ka bixi karaa oo diyaar u mihi inaan ka baxo mana ii qorshe isla waqtiga la taagan yahay 3 bilood iska day 3 sano xataa inaan uga bixi karo ma maleynayo laakiin waxa ii qorsheysan ilaa iyo xad inaan sii joogi doono ima qorsheysan inaan Soomaaliya u laabto ama wadan kale aan aado meel aan ka ceesh bartay oo ka nolol bartay oo familygayga aan uga xoogsado way halkan familygayga dhan aniga ugu tiirsan yihiin marka ima fududa inaan hadeertaan shuruudaas dartood aan uga baxo wadanka aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi Khatre Axmed waxay degan tahay Sacuudiga dareenka Soomaalida Sacuudiga sharci la'aanta ku joogta ayayna uga warramaysay wariyaha